marka ugu horeysa daarimi maxay ka dhigan tahay asal ahaan xagee ka timid waxay ahayd si kooban daar imi ayuu magacu ahaa oo loo bedelay daarimi waa goob aan dhaxan ahayn waa goob aan kulayl ahayn xilligii iyadoo isbeddelka cimiladu isbedbedelayo xilligii magaca la bixiyey qabowna may ahayn kulaylna may ahayn marka hore ku soo dhawaada waan idin leeyahay daar imi oo aad maanta joogtaan intaa kadib daarimi waxaa ka mid ah santaradeeda goobtii uu ku dhashay imaam axmed guray oo ah hoobad oo meel waxoogaa dhowr kilomitir inoo jirta inay goob taariikhiya tahay taasaa ku tusaysa hoobad haddii aad akhrideen buugga futuuxul xabash waa meel dhowr kilomitir oo keliya halkan inooga jirta sida ku xusan futuuxul xabash sida ku xusan isla buugga waxa uu tilmaamayaa meel aan ka fogayn harar waxay u jirtay meel farasku uu hal maalin ka socdo waa meel yacni qiyaastii marka afka luqadda aan wada fahmayna lagu hadlo 35 ilaa 50 kilomitir waqooyi bari kaga beegan oo Soomaalidu ay degto waa sida uu dhigayo futuuxul xabash waa futuuxul xabash kan ka hadlaynaa waa buugga ka sheekeeyay saldanadii islaamka ahayd ee ugu weyneyd bariga Afrika oo dhan waxana laga yaabaa in badan oo idin kamidii inay buuggaas isagoo af Soomaaliya isagoo af Ingiriisiya isagoo Carabiya isagoo Faransiis baad akhrideen waxaad ka akhriyi kartaan abaanduulayaashii ugu horeeyay ee ciidanka ku deeqay wuxuu ka tegay daarimi abaanduula mataan isagoo wata 5,000 oo ciidan ah oo fardoolay iyo lugalay isugu jira inay duulaanka ka qayb galaan dhanka kale daarimi waxay ahayd xaruntii ganacsi ee soo jirtay tan iyo xilligii ugu firfircoonayna waxa la tilmaamaa inay ahayd xagga ganacsiga 1875 ilaa 85 sida ay dhigayaan qoraalada masaaridu ay ka sameeyeen xilligii ay xukumayeen magaalada Harar haddaba muhiimadda ganacsi iyo istiraatiijiyadda juqraafiyeed ee daarimi ay leedahay waa midda keentay in Talyaanigii iyo boqortooyadii Ingiriisku ay heshiis ku galaan laga bilaabo daarimi ilaa laga gaarayo xuduudda kala qaybisa oo xilliga ay dhigaysay daarimi inay ka tirsan tahay boqortooyada Ingiriiska ama juqraafiyadii loo yaqaanay British Somaliland daarimi waxay mar kale shiiqday markii ciidamadii Menelik ay qabsadeen dhulka Soomaalida iyo guud ahaan bariga Itoobiya bishii January sanadkii 1887 waana dagaalka loo yaqaano dagaalkii Jalanqa ka dhacay ayaa lagu qabsaday dhulkan daarimi waxay ku abtirsataa saldanad facweyn oo hortayda ay ka muuqdaan oo tirsanaysa in ka badan 600 oo sanadood ugu yaraan 20 garaad oo garaadada beeshan ama deegaanka ka soo jeedana inta ugu badan waxa lagu caleema saaray isla deegaanka degmada daarimi ugu dambayn daarimi iyo guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika waxa ku duugan markhaatiyaal taariikheed oo u baahan cilmi baadhis qoto dheer ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo archaeological study la sameeyo oo darsa magaalooyinkii aasmay iyo raadadkii ay ka tageen ilbaxnimooyinkii hore qadiimka ahaa oo xilli caan ka ahaa guud ahaan gobolka geeska Afrika waxaan tusaale u soo qaadan karnaa halkan waxa ku duugan masaajido iyo magaalooyin badan oo in ka yar 3 kilomitir inoo jira guud ahaan masaajidadana waxaad arkaysaa habka iyo farsamada loo dhisay inay ahayd mid ka turjumaysay taariikhdii islaamiga ahaa ee gobolkan soo maray ugu dambayn waxaan mar kale ku boorinayaa madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida ee halkan fadhiya iyo jiilka soo korayaba in dhulkeenna dalkeenna iyo deegaankeenna ay ka jiraan boqolaal iyo kumanaan goobood oo u baahan in lagu sameeyo cilmi baadhis xeel dheer oo ka markhaati kacaysa taariikh facweyn ilbaxnimo soo jireena oo weli raadkeedii u muuqdo. Salaamu calaykum.